shirkayga jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacday 16 bishan bisha 12aad 2019 waxayna ku saabsan tahay marxuum xasan kutun calasow oo ku geeriyooday 16 bisha ku geeriyooday isbitaalka guud ee Martini isbitaalkaas waa isbitaal dawladeed horta marka hore taliska ciidanka asluubtu wuxuu u tacsiyeynayaa eheladii iyo casabadii uu ka geeriyooday xasan kutun calasow aad iyo aad baa taliska asluubtu uga xun yahay oo ugu horeeya taliyuhu ilaa iyo inta kale taliska ciidanka asluubtu waajibaadiyadiisa waxaa ka mid ah maamulada xabsiyada dalka kow ilaalinta maxaabiista iyo daryeelka labo waxbarista iyo dib-u-bulshaynta maxaabiista saddex dhowrista xuquuqna aadanaha afar ilaalinta hay-adaha dastuuriga shan difaaca dalka iyo sugidda ammaanka waajibaadka ciidanka asluubtu maadaama uu saa yahay bolisiga dowladda iyo kan asluubta midna kuma jirto in maxaabiista si sharcigu qabo si aan ahayn loola dhaqmo maxaabiista waxaa loo sameeyaa waxbaa la baraa cunto fiican baa la siiyaa biyo nadiifaa la siiyaa sariiray ku jiifsadaan telefishinno ay fiirsadaan dadkoodu waa u yimaadaan axadda iyo arbacada ma ahan dad la cadaadiyo taliskuna ma cadaadiyo mana iliminaarayno mana dhibaatayno waxaan caddaynaynaa xasan ilaahay ha u naxariiso wuxuu ku dhintay horta marka u horeysa waxaa la yidhi meelo kaleo ku dhintay wuxuu ku dhintay isbitaalkan dowladda oo Martini way caddahay taas qodobka kale taliska ciidanka asluubtu markay dhacdadaasu dhacday wuxuu salboosa shaqadii ka joojiyey maanta oo taariikhda 18 bisha taliya xabsiga dhexe wuxuuna magacaabay guddi 3 xubnooda oo uu hogaaminayo General Xasan Cumar Afrax macallin Xasan guddigaas baa baaris galaya baaristaas waxaan rabnaa in aan la soo wadaagno ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda saraba waxaa lagu dhaqmayaa oo la arkayaa ka hor dhicimaya baaristaas waxay soo saarto oo ay ka soo saarto meeshaas waxa la sheegayo annagu waxaan aaminsanahay inaan ku shaqeyno nidaam sharciya waxaan aaminsanahay amaawiirta dawladda inaan ku shaqeyno waxaan aaminsanahay wixii naloo igmada inaan ku shaqeyno mana aanaa gees marin macnaha dadkana waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed hadday wax dhacaan inaan la buunbuunin caddayn marka la helo oo wax cad la helo waxaa saacad iyadoon la buunbuunin oo la weynayn oo imise kun oo qof baa xabsigan hadda waaba dhici karta qof imise kun oo qof baa xabsigan nabadgelyo uga baxday waad garan ka dhaan imise qof baa nabadgelyo ku soo gashay waad garan ka dhaan sidaa daraadeed ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa iyo qoladiina hadda meediyahaba inaan la buunbuunin wax caddayntooda aan lahayn oo annagu aan hayno waxa jirana waa soo gudbinaynaa taliska iyo taliyaha tallaabadu qaadayna waa idiin sheegay iyadoo ummadda Soomaaliyeed rabo in aan ummadda u shaqeyno ummadda u adeegno waxa maslaxadeeda iyo waxa danteeda ummadda Soomaaliyeed annagoo ku hawlan oo qabana xabsigu waa caloosha dawladda negative waxa weeye waxa soo xira maxkamada dadka soo xira annagu meesha waa ku hayno haddaan meesha ku hayno markii xukunkiisu dhamaado
qofkaas waa la sii daaya intuu garsugaha yahayna wuxuu sugaa xukunkiisa mas-uuliyadda qofka waxaa iskale kore iyo xabsigiisa annaga markuu dhammaadaan dhowranaa waqtigiisa sidaa daraaddeed annaga waxaan ku shaqaynaynaa nidaam waxaan ku shaqaynaynaa sharci lamber 7 waxaan ku shaqaynaynaa nidaamka xeer nidaamiyaha 49 waxaan dhowraa qawaaniinta dalka waxaan dhowraa qawaaniinta xabsiga u degan sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed saa inay u fahanto aad iyo aad baan u mahadsan